السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسن أقياري ميل والبو جوجتانبا waxaan idin leenahay maqribnaba wanaagsan caawa habeenimo talaata ah arbacina ay soo galayso taariikhduna waxa ay ku aadan tahay 17ka bisha 7aad ee July sanaduna waa 2024 ku soo dhawaada channelka Reexaan channel meel walbo aad joogtaanba waxaan idin leenahay habeen wanaagsan waxaan qaadan doonaa 10 kamid ah 10radii aynu baranaynay waxaana si gaar ah caawa diiradda aan u saari doonaa luqadda Carabiga laba qofood ayaana wada hadli doonaa waayahay midka koowaad waxa uu yiri ayna tarkudu al-yawma maanta xagee baad u rucleynaysaa ayuu yiri xagee baad u rucleynaysaa yani xagee baad u ordaysaa waxa uu yiri kii kale ana daahibun ilaa masqadi ra'si ana daahibun anigu waxaan u socdaa ilaa masqadi ra'si halkii aan ku dhashay ilaa masqadi ra'si makaanu wilaadati meeshii aan ku dhashay masqadi ra'si waxa la meesha aan ku dhalatay marka wuxuu yiri ana daahibun ilaa masqadi ra'si waxaan u socdaa halkii aan ku dhashay aan ka soo jeeday ayaan u rucleynayaa arkudu ilaa masqadi ra'si waxa uu yiri su'aal kale ayuu weydiiyay hal tastaqbilu al-aqarib hunaka ma qaraabada ayaad qaabilaysaa oo la kulmaysaa oo halkaa jooga laa ayuu yiri maya yaa sadiiqi wadaygaygiyo laa tutaabicu al-ahdath adigu lama socotidba al-ahdath al-akhira dhacdooyinkii ugu dambeeyay adigu lama socotidba laa tutaabicu al-ahdath yani al-akhbaar al-akhira wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay adigu ma bala jaan qaadaysid waan ku taabanayaa cashiiratuna reerkayaga ayaa aqadatil quwwa waxay xoog ku qaateen oo ay ku furteen bisilaax hub awil mucaddaat al-askariya ama saanad military ay reerkayaga ama reerkeena xoog ku furteen oo ku qaateen marka reerkeena ayaa xoog waxay ku qaateen hub ama saanad military marka xagga ayaa u socdaa waay ma huwa xajmu silaax intee ayuu la egyahay waa hubkaas xajmigiisa yani intee ayuu la egyahay baaxadiisa xajmi waa iska carabi Soomaalina waa loo isticmaalaa baaxad intee la eg waay hubka oo reerkayina ay la wareegeen ama ay furteen wuxuu yiri asiga maadaama uu soo gaarin wili samictu waxa igu maqaalaha oo maqlay shaaxinatayni kabiiratayni in ay yihiin waay laba gaari oo kuwa waaweynka xamuulka qaada oo kabiiratayni waliba waaweyn gawaarida waaweyn oo laba ah oo muhmalatayni oo waliba sida ama ku raran bianwaa'in mukhtalifatin min al-asliha hubka noocyadiisa kala duwan laba gaari oo ku waaweyn ah oo waliba muhmalatayni oo sida ama ay ku raran yihiin bianwaa'in mukhtalifatin min al-asliha hubka noocyadiisa kala duwan ay saarihiin ayaan maqlay in ay furteen waxa uu yiri markaasi wa ayna yunqalu hadha al-adad al-kabir min al-asliha xagee loo daabulaya hubkan tirada badan wa ayna yunqalu hadha al-adad al-kabir min al-asliha xagee baa loo daabulaya oo loo sidaa wa ayna yuhmalu xagee loo wadaa hubka intaan leeg oo loo daabulaya waxa uu yiri markaa isna la acrifo anigu garan maayo oo ma ogi waay fi ay itijaahin kaana tasiru dhinaca ay u socoto hubkaas anigu garan maayo fi ay itijaahin kaana tasiru dhanka ay u socoto hubkaas anigu garan maayo anigu inta un baa maqlay ala kulli xaal ayuu yiri faqad istafaada cashiiratuna faqad istafaada way ka faa'iiday cashiiratuna minhu reerkayaga way ka faa'iideeno hubkaas way la wareegeen walaa yumkinu suuragalna maaha liay qabiilatin reer kastahay an taqriba minna inay noo soo dhawaato walaa yumkinu kuma dhacdo waay oo ma habaysanayso waay liay qabiilatin qabiil kasta waay an taqriba minna inay noo soo dhawaato qabiilna kuma dhaco oo daris wadaag aan nahay
ood wadaag aan nahay inay inoo soo dhawaato awood uma laha kumana dhacdo waay mar haddii aynu gacanta ku dhignay waa hub intaa la eg kii kalmagaas uu yidhi walla yaabay subxaanallaahi waay laa taqul daalika oo sidaa ha oran laa taqul daalika sidaa ha dhihin waay oo hub inaad hesho kadibna aad u dhaarato walaalkaaga oo isku reer ahaan isku dhowdihiin daris wanaag aad tihiin inaad midida u safaysato ha isku dayin waay sidaana ha u hadlin fa anta insaanun cadiimun adigu waxaa tahay qof weyn aad tahay markaan kadib kuma dhinno waay caqli kuu soo kordhi doono ma jiro waay aqligaagu wuu dhamaystiran yahay ee ittaqillaah allana ka baqo alle ka cabso alle ka cabso waay safku dami muslimin dhiig muslim daadintiisa ama in la daadiyo laysa dacmun fi lxayaati nolosha dhadhanku ma laha qof muslim ah oo walaalka ah inaad dhiiggiisa daadiso dhadhan noloshaan kuma laha qof muslim dila oo walaalkay ah oo daris aan nahay oo muslimnimo ah soomaalnimo ood wadaag aan nahay dhiiggiisaan daadina haddana noloshaan rabaa inaan ku raaxaysto dhadhan ii yeelato suuragal maahantaas nolosha waxay dhadhan ku leedahay in adiga walaalkaaga bar a kasoo jeedaa ama dhinac a kasoo jeedaa horeyna looma sheegin qof dilay qof kale oo muslim ah ee haddana adduunkan ku raaxaystay waxaan ka hadlaynaa qofka qof dilay oo dhiiga galay isaga toos u galay inuu nolosha adduunka ku raaxaysto horey looma arka qofkii arkayna commentiga ama xagga tacliiqa waa inoogu reebi karaa marka nolosha macaanteedu waa in walaalkaaga aa badbaadiso laakiin qof dilay muslim dilay dhiiggiisa daadi iska dhaaf nolol kale inuu raaxaysto inuu hurdo xataa ma suuragelayso hurdada ka tagayaa nolol kale midna arki maayo marka waxaa bilaabanaysa un qur-aan hala saaro xaggaasaa laga soo gaaray wadaada hala waco wadaadada unbaa la dhibaa wadaadada looma sheegaya haddante in qofkaan qof muslimaad ka hor uu dilay markaasaa lee un wadaadada hala waco qur-aan hala saaro haddii ciddii dhibka loo geystayna cafisna laga dalbi maayo diina loo gey maayo maxkamad in la tagana la dhihi maayo qofkaan oo wiilkeena ah qofkaas ayuu wax ka dilay marka waxaan rabnaa in laga fuliyo xadki marka qur-aan hala saaro saa baa looga dababaxay isna weligiisa nolol raaxa arki maayo marka horeba qof muslim dilkiisa ama dhiiggiisa daadintiisa dacmun fi lxayaat nolosha dhadhanku ma laha qofkii cabsi u welwel iyo uun wuxuu ku jirayaa un qarow joogto ah qofkin baa mar walba hor imaanaya marka wadaadada un baa la dhibaya wuxuu yidhi walaakin maadaa qaalat alxukuuma haddaba xukuumadda ama dowladdu maxay ka tiri can daalika arrinkaas dalka iyadaa madax ka ahay oo maamulaysee walaakin maadaa qaalat alxukuuma can daalika oo dowladduna arrinkaas maxay ka tiri dhankeeda qaalat maa qaalat waxay sheegtay unbay sheegtay ninkan kuma qanacsana wuxuu aad ugu faraxsan yahay reerkiisa in ay helaan hub intaa la eg intaa ayuuna ku qanacsan yahay waxaana ku jirta iska celin reereed marka wuxuu yidhi qaalat maa qaalat dowladdu waxay sheegtay unbay sheegtay uu yidhi waxba kama soo qaadin warkeeda idna aad aa u mahadsantihiin meel walbaa joogtaanba Reexaan channel ayaadna kala socoteen casharka intaan casharkees xiga aan gaari doono dhammaantiin maxaan leenahay dhammaanteenaba habeenku idin wacnaado mahadsanidin dhammaantiinaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh